جاي اسكسر بحي قاعدين تضرب راح حاجه عشان قاعد تقول انت مقام براي وين في انا خلاص الجوجات ugu dambeyn ayaa waxa soo gaaray halkan dabdamisada ay leeyihiin ciidamada midowga Afrika iyo sidoo kale dawladda Turkiga ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya iminka dabka intiisa fara badan waa uu istaagay waxa socda waaqac kaliya intaasna waa lagu sii gudo jiraa in la damiyo oo inta fara badan la hakiyo qaacaasi si uusan markii dabal ay imaato uusan uga dhalanin dab kale dhinacaas waa qaybta ugu dambeysay iminka la doonayo in laga shaqeeyo waxa galay shaqaale fara badan oo iyagu ah gurmadka degdega ee dabdamiska waxa xusid mudan in meeshan si weyn uga shaqeynayo gudoomiyaha degmada Waabari Ahmed Mayra Makaraan oo isagu ah gudoomiyaha ka taliya degmadan iminka ka dhacday musiibada tani dhinacaas iminka gubanaysa aad u jeedaan qiiqa fara badan oo ka baxayo waxa yaala shidaal fara badan kaasoo iminka la doonayo in gacan weyn laga geysto sidii markaasi aysan u qasaare kale uusan uga dhalan lahayn waxaana sida muuqataba markii halkan ay soo gaareen ambalaasada aan ilaahay dabdamisada ay leeyihiin ciidamada midowga Afrika iyo booliiska Turkiga iyo biyaha ku caawinaya in inta fara badan ay istaagtay dhibaatada halkan ka soconaysay cagaf waxa ay qaadatay kaalin aad iyo aad u weyn taasoo inta fara badan dumisay darbiyada iyagu laga bixiyay baabuurta waxaana sidoo kale sida muuqataba muuqaalkii indhihiina qabanaya ay yihiin gawaarida iyagu uu gaaray dabka gabi ahaanba ku gubtay garaaskani halkan waxa xasuus ah dad fara badanna aysan iloobi doonin ganacsiyo fara badan in hantidooda halkan ay aad iyo aad ugu gubato iyadoona sanad walba xilligan oo kale dhibaatooyinkan oo kale ay ka dhacaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya taasoo inta fara badan dadka ay ku sheegaan in xilligani kale ay ku aadan tahay xilliga la bixiyo dekada hase ahaatee waxa taas sababay la dhigi karaa dabkani goobaha iyagu lagu iibiyo shidaalka iyo baabuurta oo iyagu ah goobo inta fara badan dabka aan ugu adkeysan karin in lagu gado
ama qaayado shaaha taasoo sababi karta in basiinka meesha yaalla uu waxyeeleeyo aan idhaahdo dabka shaaha meesha lagu karinayo dabka lagu sameeyo inuu waxyeeleeyo basiinkana haddii uu dab gaaro inta fara badan uu saameyn ku yeelan karo guud ahaan waxa yaallo goobta markaasi masiibada ay ka dhacday waxaa iminka la taaganahay cabdiweli muumin cabdi oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir ee dhanka gurmadka degdega cabdiweli meeshan waxaa ka dhacday musiibo aad iyo aad u baaxad leh halkan waxaa ku jirtay khasaare halkan waxaa ku jirtay hanti shacab ay lahaayeen oo isugu jirtay shidaal iyo baabuur walow macquul tahay in halkan nafta ay isugu jirtay waa la sheegi karin maadaama dabka uu haddaba aad iyo aad u xoogan markaas maxaa sababay in khasaarahaasaan u bato iyadoo meesha ay yaaleen dabdabisyo aad u fara badan bismillahi raxmaani raxiim ku bilaabay magacayga cabdiweli muumin cabdi oo ku hadlaya magaca gurmadka degdega ee gobolka banaadir ama hay-adda cusub ee la magacabsaday muqdisho emergency service dabkan sidaa ujeedaan wuxuu ka bilowday shidaal dadweynahana ma fahamsana meelaha ay ku kaydsanayaan shidaalka waxaa loo baahan yahay inay samaystaan meel ay ku kaydsadaan shidaal sida ay kaalimo shidaal oo kale waa tahay dadka inta fara badan dadka waxay idinku dhaliilayeen inaad ka hor imaanayseen dabka xagga leertay ka socoto taasna waxay dhibaato ku noqon kartaa baabuurka dabdamiska samaynaya oo dabka soo gaari karaa iyadoo muuqanaysa in holaca aad iyo aad markii aan joognay isgoodka kilomitir koor dhankaas ase aan muuqanaysa dabka inuu soo gaaray xitaa dadku iyagu meesha ku sugnaa marka hore maxaa diiday in meesha dabaysta ay ka imaanayso aad ka soo tagtaan oo halka dabaysta u socotaad ka soo martaan isla mar ahaantaana khasaaraha meesha ka dhacay uusan halahan gaarin sax su'aashaas waa su'aal mudan waa su'aal inaad weydiiso loo baahnaa dhalinyarada shaqaynaysa ama ka tirsan gurmadka gobolka banaadir ma ahan dhalinyaro aan khibrad u lahayn waa dhalinyaro khibrad u leh dabkana laga istaago dhinaca shidaalka waxaa kalifay in dhinaca dabka aan ka imaano waddadii aan ka soo galnay ayaa ku baagnayd waddada dhinaca dabka marka meel la marna ma lahayn waa ujeeda meesha meel ganacsi waaye waxaa loo baahnaa in ay ka taxadiraan meelaha ay ganacsiga dadweynaha ay ku samaysanayaan waa tahay markii la eego khasaaraha meesha ka dhashay waxaa jiray in dabdamsiyo ay yaaleen ugu dambayn waxaa soo gaaray halkan dabdamsiyo ay leeyihiin ciidamada midowda afrika qayb libaax leh ayay ka qaateen sida muuqatana iminka dadka waa udamayaa qaybihii ugu dambeeya ayaa la sii marayaa sidoo kale waxaa xusid mudan in booyadaha turkiska iyaguna gacan ka geysanayeen keenista biyaha maxaa marka hore idiin diiday inaad idinka taladaas qaadataan sida agafka oo kale halkaas ugu jebinaya in maadaama aad tihiin gurmadkii degdega ee dabdamisyada marka hore inaad idinka khibraddiina ay gaarto in la dumiyo derbiyada si gudaha loo soo galo isla mar ahaantaana dabka loo damiyo sax waa su'aashaas waa su'aal saxsan agafkana ujeeda waxay ka midsan tahay gurmadka degdega ee gobolka banaadir agafka arkayso sababaha nagu kalifay in aan yani aan dalbano amisom meesha iska iman halkan waan isku xirannahay anaga iyo amisom waa dadka magacyo eena soo dara qaadkana aan u shaqeyno mar walbana waxaa loo baahan yahay qofka kaaweyn oo arag lah inaa u yeerato maamulka gobolka banaadir iyo dowladdaba waxaan u sheegayaa in dalbiyo aan u soo gudbinay sanad ka hor gurubkan wuxuu dhisan yahay hal sano qalab waxaan u baahannahay booyado dowladda markii waxaan oo kale ay dhacaan inay noo yimaadaan ay noo sheegaan inay noo keeneen haddana waxba ma haysan waa tahay goor dhaweed waxaan la kulmay oo aan cod ka qaaday mid ka mid ah dadkii iyagu ku shaqayn jiray xilligii dowladda siyaad barray gurmadka degdega waxa uu idinku dhaliila khibrad xumo idinka idin haysataa waxaa jirtay in isagu ay muuqanaysay in uu biyaha xirayo tubada taasoo aysan awoodin shaqaalihiina inay xiraan biyahaasi muuqanaysayna in amarkiisa aan la qaadanaynin waxaan noo sheegay in haddii taladiisa la qaadan lahaa dhibaatada baaxadda intaadinka ra'yigiisa maxaa u qaadan weysay waa saxan tahay ninkaasna waa qabiir sida uu sheegtay qof walba oo qabiir ah ama takhasus u leh waxyaabahan dabka kicin karo ama naga caawin karo waan soo dhawaynaynaa qabiirkaasna waxaan si gooni ah uga codsanaynaa inuu la xiriiro dowladda iyo maamulka gobolka banaadir si wixii khibradiisa uu leeyahay oo meeshan ka qabto anaga aan noo jeedaan waxaan ka mid ahay 20 qof oo lagu soo tababaro dalka Kenya Nairobi waxaan takhasus u leenahay hataa maaha shidaalkan oo kaliya inaan damino waxaan takhasus u leenahay in aan damino airport kale oo professional keena uu yahay haddana macal asaf dadka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa markii aan la shaqeynayno inay nala shaqeeyaan anaga kaliya maaha dadka u gurmanayna waxaa xusid mudan in shacabka ay la shaqeeyaan in fara badan gawaarida halkan laga bixiyo kulligood waxaa bixiyada shacabka waxaa ka gacan ka geysanaya in ay laga bixiyo halkaas bacaad gawaarida laga saaro dadka shacabka darawalla iyagoo aan ka tirsanayn garaaska ama baabuurka bixinaysay wallahi hadii shacabka gacan weyn way sax shacabka ma ku tala jirtaan in markii aad ku laabataan xarumihiina dadka idinka idin soo diray inaad u sheegtaan dhaliinaha meesha
maanta idinka lidinka sheegay waxaan jeclaan lahaa sideeda waa in war halkan lagu soo koobi karo oo bixin gaaban inaan ku siiyo aan soo gunaan barnaamijkan maadaama ay noo taalo shaqo waxaan u sheegayaa dadka shacabka ma nihin anaga dadka dalka difaacaya oo kaliya anaga waxaan nahay dad ku taagan dadka shacabka waxaan matalaynaa dadka shacabka saysa noo aqoon bini'aadana nahay qalad waan samayn karnaa wixii faa'iido ah ee nagu kordhinayaan ama ra'yi ama khibrada waxaan ka codsanaynaa in ayna soo wacaan taleefanadeena oo kale ah 997 ama taleefano qaasaan leenahay meeshiikana waxaan nala siiyey 55 wixii khibrada shacabka aad ay u mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa ugu dambeyn ma jirtaa intii aad gurmadka degdeg ku jirteen shaqaalihii dhibaato soo gaartay ها ويجي كان ما كور قبتها إن هل كان ضد النفط واحد جارتي ضد ماشي ويجي إن ماشي كده على سيبوين بدن أو ويجي هندي يمالبا شغالها لفت جو أو كده تكون متدقق عني وعنده يكون أخي لو وقف إسعاف لاص منه أو نقص كفر حرمي قلب كين وينو يا رام وحنا جم قط سيدا شيء نبيروين سيدا لو استعمال قلب كاسينو شيء ساسا مكتوب وعد سنين سؤال معجون إن أدي بقول بالله يا مجا وحد كمان هذا كي وجوارد هل كان كبيحيي إن حكوا جدا يجرن إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة كل عضيدة الصوماليات وأنا جنا شعب الصوماليات وسوق رمضان كمل نهاي مصيبة ماشي كده عضي مركان ورجني أنا جا إلا سيديد بابور كيرير عن ماشي كبحيي dhibaatada meesha ka dhacday markaan arkay cid dadka sajiri gurmadka shacabka Soomaaliyeed heelada meesha u geysatay inay u gurmadaan ka mid ahaan waa tahay markii aad baabuurta galeysay sidee lagu aaminay waxaa lagu aaminay ninka hadduu mar darawal yahay gaariga intuu istaaraydiisii hor u dhaqaaqi kara maxaa tahay xageed u socdayd isweydiinaysaa ma ay jirto dadkii meesha iska soo daaray holaca iyo dhibaatada meesha ka dhacday gurigaygaan joogay dadku markaa arkaan soo orday markaan midna dhibaatada meesha ka dhacda aan arkay cagaftii ugu horeysay oo dumisay gaarigii labaad oo soo bixiyaan ahaa gaari hoomeyaan ka soo bixiyey ilaa gaarigii sideedaad oo baabuurta yarana ka soo bixiyey shacabka Soomaaliyeed oo soo gurmadaan ka mid oo ma santahay daawalyaalkaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah darawalada iyagu ka bixiyay gawaarida halkan oo u waramay telefishinka caalamiga ah oo cable TV waxaan ku bilaabnay gudoomiyaha degmada Waaberi gudoomiye waxa dhaheedeen dadku ugu soo horeeyay halkan soo gaaray markay musiibadan dhacday maxaad aragtay intii diin ay qabanayeen la aadi aan leenahay maanta musiibadan waa musiibo rabbaaniya intii ay wax ku gaareen maaragtay waxaan leenahay ilaahay sabr iyo iimaan ka siiyo intii ka badbaadana alxamdulillah marka waa musiibo rabbaaniya sida u jeedin gurmad badan ayaa la sameeyay gurmadkii banaa la sameeyay intaana lagu badbaadiyay intaana waa maaragtay intii ku baaqaday marka alxamdulillah waa ilaahay maaragtay awoodiisa wax dib ka kacay xaalinka shidaalka ku jiro baqaas shidaal ku jiro afka ku yaala muddo ka dhashay noo sheegeen dadkii joogay goobta marka aad iyo aad ayaan ugu xunnahay maadaama ay dad shicib oo hanti badan meeshaan ugu jirtay wax badan oo qasaaraan ay muuqato waxaan leenahay ilaahay bedelkooda khayr qabaasiyo sabr iyo iimaan Allah ka siiyo waana ka xunahay dhibaatadii gaartay waana la qaybsanay xanuunkaas oo ma santahay gudoomiyaha dhanka ammaanka gobolka Banaadir Warsamo Joodax gudoomiye halka dadka uu ka kacay waxa ku dhagan maqaayad badda sida muuqata fustooyinka halkaas saarnay darbiga ku dhagan waxa uu ahaa goobta ay wax ku karsato maqaayadda inta far badan dhibaatooyinka waxay ka yimaadaan goobaha shaahiyada lagu iibiyo ku dhex yaalo meelaha saan oo kale ah marka maxaad ugu baaqaysaan dadka sidaan oo kale ganacsigooda leh intii aad soo gaartay halkan aad joogtayna hol far badan aad ka qabanaysid ma jiraan dad iyagu halkan wax ku waxyeelo bismillah horta marka ugu horeyda sida gudoomiyadu waxaan uga tacsiyeenaynaa shacabkii hantidooda iyo mataqaanaa dhaawacyada ku gaareen gaadiid badan iyo shidaal badan iyo wax badan ayaa meesha ku waxyeelooday waan ka xunnahay dhibaatooyinka mar walbaba hantida dadka ka baabi'inaya oo la isdhex dhigayo shidaalka gaadiidka maqaaxiyaha kuwa shaaha karinaya waxyaabahaas khatartaan ay leeyihiin waan rajaynaynaa insha Allah in laga bedelo maamul ahaanna inaan habayno waxyaabahaas oo shidaalka iyo meelihii loogu talagalay iyo godadkii lagu jiro ayaan rajaynaynaa waxaan uga tacsiyeynaynaa hantida iyo dadka gaaray ama naftooda wax ka gaareen ma garan karno ka ballaaran oo shidaal iyo qaraxyo badan ku jiraan ayaa meesha ka dhacaya laakiin hadda waxaan soo dul istaagnay ama dhaawac gaaray ama dhimasho ma arag waxaan rajaynaynaa insha Allah dadku inuu dadaalo wixii hadda ka dambeeyo wixii dhacana waa ka tacsiyeynaynaa insha Allah inta ka qayb qaadatana way u mahad celinaynaa aad baad u mahadsantihiin adinkuna ka wariyahaan iyo idaacadaha
mahad celinayna ayaan goobjooga aad iyo aad ma soo gudoomiye oo tahay daawadayaal intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu ku eegaynay dad soo ka isku kiiloomitir hore magaalada Muqdisho wanaagsani waa mid u gaara qoyskeena waana hidda soo jireena oo gabdhuhu ka dhaxlaan hooyooyinkood annagoo marka hore isticmaalayna khudaarta u wanaagsan haddana si aan u raali gelino qoyska qof kasta waxa uu leeyahay sir u gaara sidaan u macaaneeyo cuntadayda waxaan isticmaalaa jumbada cusub ee ariga marka aan ku daro jumbada cusub ee ariga cuntadaydu waxay yeelataa dhadhanka dhabta ee cunto karisteena